waxaan fadhinaa abukaataha Tibet la yiraahdo waxaan ula joognaa arrin Soomaalida caalamka joogta ay wada og tahay waxaa halkan fadhiya walaalkeen Garaase oo ah nin dhiban oo Soomaaliyeed waxaan rabnay in xaaladdan la sugayay dad badan oo Soomaali ah ay caalamka jooga iyo kuwa dalka Norway joogaba walaalkeen Garaase sida aad ogtihiin waxa la yiri dalka Norway ka bax isagoo saddex caruur oo dhalay ka tag afar caruur saddex wiil iyo gabar waxaan raadinay in aan u helno qareen hawshan gala badbaadiyay ninkan walaalkeen iyo caruurtiisii sida awgeed ugu horreyn horta waxaan mahad celinayaa intaan aan ka hadlin arrintan gabdhihii Soomaaliyeed lagu magacaabayay hooyooyinka qolka hooyooyinka la yiraahdo Umal Khayr iyo labadii gabdhood Soomaaliyeed aan kula kulanay magaalada Oslo ee lacagta awood leh ay tirada badan la siiyay inaan ku caawino walaalkeen nagana codsaday in la ogaado xaaladda siday tahay dhowr bari baan ku soo noqonaynay abukaadkan si wada jira anoo la kaashanayay dad muhiim ah magaaladan ninkan Cabdiqaadir Cabdiraxmaan waxa weeyaan wuxuu la dhashay ama qaraabo yihiin Garaase Cabdiqaadir Abtidoon waa ninka Soomaaliyeed oo magaalada degan dad badan oo kala jooga laakiin intaan aan soo galnay waxaa la qorsheeyay in qarashka ku baxayo ninkan uu yahay hadii hawshiisa la galay lacag gaaraysa 100,000 waxaan u haynaa 80,000 oo gabdho Soomaaliyeed Umal Khayr iyo gabdho Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Nadiifa Maxamed iyo Ifraax oo magaalada Oslo degan ay nagu caawiyeen oo 80,000 looyarku wuxuu yiri 150,000 bay ku kacaysaa in xaaladiisii dacwadiisii la galo rajo fiican buu na tusay waxaan go'aansanay guddigii inta joogtay inta banaanka jirtay aan ku heshiinay inaan kula heshiino qiimahaas aan galno aanu go'aan ku qaadanay kadib markii aan shir galnay oo ehelka la tashtay oo aan dadka waxgaradka magaalada degan la tashtay waxa la go'aamiyay in Tibet abukaat culus oo dalkan aad loogu yaqaano lala heshiiyo go'aankii la qaato lacagtii loo xareeyo ka yaraan kartaa lacagta 150 buu qabsaday way ka yaraan kartaa buu yiri laakiin hadda waxaan haynaa 80,000 oo 6,000 waxaan siinay kulankii hore oo aan abukaataha la kulanay oo ahayd in waraaqaha lagu gudbiyo dacwada inuu geli karo noo sheegay sida awgeed waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto aan ka codsanaynaa in arrinta laga qayb qaato dhaqaalaha dhiman ee abukaataha codsadayna laga qayb qaato oo markaa ay noqoto mid la soo kordhiyo si hawshiisii loo galo rajo fiicanna waa qabnaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa gabdhihii Soomaaliyeed oo aan aqoonin la guddoonsiiyay 80,000 koron aan ka soo qaaday anigu xawaalad bay taallaa lacagtii intii uu ka qaatay loo yarkay 60,000 ahayd intii kale xawaalad baa loo dhigay inta dhiman ee 150 ka dhiman waxaan ka codsanaynaa in laga taageero la caawiyo walaalkeen laga qayb qaato caawintaas anagana wixii warbixin ka soo korna inaan idin soo gudbino meel kastoo aad joogtaan walaalkeen waa caafimaad qabaa hawshaasna waa mid ummadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway degan aan ambifaalta kaga dhigayo aan u sheegay inay ka qayb qaataan dhaqaale sababtoo ah tan hadday isagu ku dhacdo dad badan bay ku dhici kartaa abukatifate sidoo kale tax aad baad u mahadsantahay leenahay inta la daawanaysa inta la arkaysa iyo meel kastoo aad joogtaan waxaan si wada jir idin leenahay guuleysta la ogaada haddii talada ugu dambaysa aan idin siinayo waxay tahay haddii ninkan odaga ah oo la yiri dacwadiisa waa la furay ay noqoto in la qabto Soomaalida degan magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya meel kastoo ay ka joogaan ninkan wuxuu ka tagayaa afar caruur ah waxaan codsanaynaa in dibna loogu soo celiyo oo airportka laga soo celiyo lagu dagaalamo in Garaase aan laga deedin dalkaas isagoo caruurtiisii aan wadan waana mahadsan